Gabadhan habeenkii asxaabteeda ay la kulantay oo dib ay kaga soo laabatay sama xaafadda kuma soo gaarin. Waddada ayaa loo galay. Muuqaalka kaamirada xitaa boolisku marka ay fiiriyeenna gabadha mid la qasbayo uma ekeen. Laakiin ninkii waddada ka kaxaystay yaa waxa uu sameeyey in uu dilay meydkeedina uu jarjaray. Muuqaalka CCTV-ga kaamirada ay soo bandhigtay wax walba caddayn waxa ay u noqdeen in ninkanita mas'uuliyaddu idil isaga dushi markaa laga saaro. Ugu dambeynna afkiisiyuuba ka qirtay wax walba isagoo runta ka sheegay. Ninkanna sababta falkaniti uu u sameeyey maxaa gabadhaniti kala dhexeeyay dhammaan xogtaasiytiyo faahfaahsan muuqaalkan ayaan ku faaqidi doonaa. balse intaan gudgelin muuqaalka marka la wax ku xusuusinaa in muuqaalkaniti alla garaysiina shar garayso haddii aad ka mid yihiin bahweyntan ugu xirnaan ugu soo birto waad ku maasintaa waqtiga ku bixinaysa daawashada muuqaalkan aan gudagalno muuqaalkeena maanta. Gabadhan qisadan iyo qusayso waxaa lagu magacaabaa Lauren waxaana ay u dhalatay waddanka City Ingiriiska ayadoona dhalatay sanadii 1988. Diiwaanka dowladda sidii ugu diiwaan gashana qoyska gabadhaniti ay la nooleed waxa ay ka koobnaayeen aabo walaal iyada la dhashay iyo iyada ma jirin qoys hooyadaniti u diiwaan gashan oo dowladdu ay ogsoon tahay. Gabadhanna xilliga dhacdada ay qabsanayso ee sanadii 2020kii da'ad ahaan xilligaasiti waxa ay ku aadanayd 32 sano. Habeenka dhacdadaniti ay dhacayso oo ah 31dii bishii 8aad 2020kii maadaama waqti coronavirus xilligaasiti xayiraadihiisi dib looga soo laabanayay. Habeennimadaasiti gabadhan waxay u ahayd habeen ka duwan habeenada kale maadaama waqti dheer oo asxaabteeda aysan la kulmin xayiraado dadka saarnay oo gurigeedii in iska joogto danta qasbaysay. Gabadhan habeenkaas waxa ay la kulantay asxaab waqti isugu dambeysay baar magaaladoodii ku yaala oo dib loo furay halkaasiti ku ballameen waqti ku wada qaateen iyagoo cabitaana xitaa halkaasiti ku cabay ilaa habeenkii waqti dambe halkaasiti ku gaareen Lauren cabitaano xoogaa badan iyo cabtiba. Waxaa dhacday in waqti abaar 8 saaco habeennimo ama 2 habeennimo in gabadhaniti Lauren ay ku tiri asxaabteeda anigu waa aan sii baxaya xaafadan yaan rabaa in aan aado maadaama wadooyinkana cidla iska ahaayeen xilligaas oo dad badan aysan jirin maadaama xayiraadaha coronavirus weli ay sii jireenna asxaabteedu waxa ay ku dhaheen waddadu waa cidlo keliga inaadan xoogaha mari karin oo istirax aadan ku dareemin laga yaabaa oo ku sii raacayna xaafadan ku sii dhaweynina ay ku dhaheen. Waxay ku tirina gabadhan anigu cabsi ma dareemayo caadi waaye waa aan bixi karaa xaafadeed waa aan tegi karaa sidaasiti ugu soo tagtay. Habeennimadaas gabadhaniti waxa dhacday in waddada loo galay oo dib dambo aanan loo arkin. Waxaana dhacday in maalinnimadii xigtay oo 1dii bishii 9aad 2020kii in aabaheed maadaama uusan subaxii guriga marka uu soo kacay uusan ku arkin gabadhii ay dhacdo in taleefankii gabadha uu waco waa uu dhacayaa looma jawaabayo. Asxaabtii gabadha habeenkaasiti ee la madalsaneed yuu wacay waxaa lagu dhahay way naga soo tagtay oo keligeedii xaafadda soo aaday. Odayga dhiilaa gashay maadaama waqti badanna gabadha uu wacay loogana jawaabaynin wax fariin aan dib loogu soo celinaynin. Maalinnimadasiti koowaad sidaasiti waqtiguu ku dhammaaday. Maalinnimadii labaad oo 2dii bishii 9aad 2020kii ku aadan gabadhan waxa dhacday in Facebookgeeda location change lagu sameeyay in meesha ay joogtay meel ka duwan in ay aaday oo kale uu tilmaamayay. Odayga waxa markaa is dhahay gabadha waa haddii markaa taleefanka aan laga qabanaynin haddana location change Facebookgeeda uu sameynayo la hadal fariimo badan iyo u qoray waxba loogama soo jawaabin oo kaliya sticker baa loogu soo jawaabay. Odayga marka waxaa gashay in gabadhiisu ay xaalado wax ka qaldan yihiin sida ugu weyn oo sii qabana waxay ahayd maadaama gabadhaniti ay qabtay nooc ka mid ah sokorta heerka 1aad type 1 waxa uu is dhahay gabadhan xaalad wanaagsan kuma sugno. Boolisku si halhaleele magaaladiisa ugu tagay in baadigoob loo galo gabadhiisa si meel markaa loogu soo sheego. Boolisku baaritaan ay ugu dhaqaaqeen in goobihii ugu dambeeyay oo kale ay baaritaan ku sameeyaan baarkii ay tagtay iyo wadooyinkii markaasiti ku aadanayay soo martay la isdhihi kara kaamirooyinkii dib u wada baareen. Waxa booliska habeenkaasiti kaamiraday u soo qabatay nin gabadhaniti ay isla socdeen
waa ay israaceen oo dhowr kaamiro kale ayaa sii qabanaya oo waxay u ekaayeenba in gabadhaniti Loran iyo ninkaas si caadiya markaa dad qanacsan oo kale ay ahaayeenoo gabadhaniti aanan la qasbaynin. Ninkii raadin boolisku u galeen. Raadintii intii baadigoobkaasiti ay haayeen muddo dhowr maalin ah kadib 8dii bishii 9aad 2020kii wax dhacday in goob maqaayada dhabarkeeda wadda ah in markaasiti booliska halkaasiti looga soo tilmaamay xubno qof la jarjaray haraadigiisa in halkaa marka ay yaalaan. Boolisku waa ay imaadeen goobtaasiti waa ay ka qaadeen. Waxaana markaa ay sameeyeen in baaritaan ay ugu sii dhaqaaqaan xitaa maadaama kaamirada ay soo qabatay nin xilligaasiti alaab markaasiti wax u eg oo kale package baakad wax lagu soo riday oo kale in goobta markaasiti uu dhigay uu ka tegey. Ninkaasi boolisku raadin u galeen in gacanta ay ku soo dhigaan oo dadkii markaasiti hareeraha meeshaasiti ka dhadhawaayay wareysteen. Maqaayadda dhabarkeeda dambe oo meydka xubnaha jirka qaar ka mida la soo dhigay maadaama halkaasitina ay ahayd goob qashinka la sii dhigo kale oo ay yaalaan halkaasitina laga sii qaadaba. Ninka maqaayadda iska lahaa waa uu aqoonsaday ninkaasiti goobta wax dhigayay oo kaamirada ay soo qabatay. Waxa ku dhahay booliskiyaa wareysteen waxaanu u sheegay in uu garanayo waxa uu ku dhahay apartmentiga dabaqa aniga iga sarreeyo iyo ninkaniti degan yahay waxaanba garanayaa. Boolisku ninkaasi ay soo qabteen waxaana markaa ay noqotay in baaritaan ay ugu dhaqaaqaan in ay weydiiyaan oo ay dhahaan gabadhaniti meydkan halkaniti xubnaha yaalo yaa markaa jirto in aad adiga habeenkaasiti ama waqtiga kaamiradu ay soo qabanaysay in adiga aad tahay qofka meeshaasiti wax dhigayay. Maxaa cilaaqo oo arrintaniti kaala dhexeyso qofkaniti oo aad meydkiisa meeshaniti xubnihiisa jirka qaar ka mid ah soo dhigtay maxay tahay? Waxaa jirtay in booliska xitaa wareysiye markaa deriska ay ka qaadeen ay tilmaamayeen oo ay ku dhaheen maalintaas maalmihii la soo dhaafay oo booliska intay ninkaniti soo xirinba in ay dhaheen guriga waxaa jirtay ur ka soo baxaysay oo aan xoogaa loo adkeysan karin. Boolisku waxa ay ku dhaheen kaamirada qofka aan ka aragnay ee hore habeenkii gabadhaniti la weynay asalka ee 31dii bishii 8aadna qofkaas muuqiisa adiga waaye. Maxaa warbixino markaasiti aad ogtahay noo sheeg iyo ku dhaheen is adkeyn uu ninkaniti sameeyena iyo inuu boolisku been u sheego isku dayana waxay ku dhaheen boolisku cadeymaha idil waa aan haynaa oo labada kaamiraba adiga yaa ka soo wada muuqday waxaana ku qasban tahay runtii inaad noo sheegto. Haddii been in aad isku dayda aad sheegtana waxaa dhici karto in haddii cadeymaha marka aan kugu soo saarnaba xabsigaaga ama ciqaabta adiga aad wajahayso way kugu sii fogaan kartaa. Ninkan waxaa markaa uu sheegay uu dhahay booliska runta ayaan idiin sheegaya wax walibana waan idinkaga dhacaya sida xaqiiqada ay tahay. Wuxuu ku dhahay habeenkaas 31dii bishii 8aad ahayd waa aan soo baxay gurigeyga ayaan ka soo baxay xilligaasiti gabadha waddada iyo maraysay waan isla hadalnay oo xoogaa wada sheekeysiyaana dhex maray. Waxaana ku heshiinay in aan xoogaha markaasiti aan tacaamul jinsi oo kale galmo aan sameynay aan ku heshiinay. Waa ay soo baxdo dhawa ay soo raacday gurigeyga ayaan keenay habeenkii waa aan wada seexanay oo cabitaan iyo daraagis waxyaabo kale aan isticmaalnay. Subaxnimadii markii aan soo kacayna waxa uu dhahay gabadha wax dhaqdhaqaaqa waa aan ka waayay xaaladuna waa igu adkaatay maadaama aan si aan ku xallin kara aan garanaynin. Waxa ay noqoto dhahay taleefankeedana in markaa aan furo oo xilligaasiti aad yaa loo soo wawacay fariimana markaa waa loo soo dirayay waxa fariina kama jawaabin uu dhahay. 2 maalin markay ka soo wareegatana oo waxa uu dhahay wax ay dhimatayba 1dii bishii 9aad waqtigaasiti ay soo galayso subaxnimadaas meydii ahayd gurigeyga iyo taalay. Laakiin 2dii bishii 9aad yaa waxa aan sameeyay uu dhahay si uun xoogaha aan wax xal ah u raadiyo in facebookgeeda aan furo locationkana aan ka bedelo oo location change aan ku sameeyo. Fariimo badan ayaa soo dhacay uman jawaabin uu dhahay oo sticker keliya markaa aan ugu jawaabay. Maadaamana xaaladda igu adkaatay waxa uu noqoto dhahay in maalmo guriga aanan ka bixin meydka guriga uu ii dhex yaalay oo gabadhaniti bar aan u bixiyo ma garanaynin. Xaaladdu aad igu adkaatay uu dhahay. Boolisku waxa markaa ay weydiiyeen haddiiba qaladka adiga aad gashay oo gabadhan in haddii markaa subaxnimadaasiti aad aragtay xitaa
in xaaladeedu ay aad u liidato qof xoogaa xataa aan neefsanin ay ahayd maxaa emergency ugu wicigeysay wuxuu ku dhahay laba xaaladba iima sahlanayn in gabadhaanayti aan soo bandhigo oo aan booliska la soo xiriiro midda koowaad waxa uu dhahay anigu waxaa halkaniiti aan ku joogaa si aan sharci ahayn oo waxa aan dalkayga ka soo tegay waqti hore sababta ugu weyn ee dalkayga aan uga soo tegin waxa uu ahaa uu dhahay in xoogaha aan galmo iyo waxyaabahaasoo kale qof sameeyey aan ahaa maadaama xad la igu oofinayana waddankayga waan ka soo tegey waan ka soo hayaamay halkaniiti aan imaaday sharcina kuma aanan haysanin waxa aan ka baqay haddii booliska arrintaniiti soo wargeliyo in la i qabanayo la ina dhihi doono maxaa arrintaniiti adigoo sharci haysanin maxaa kuu geeyey arrimahan arrintaasiiti waxa igu noqotay uu dhahay cabsi sidoo kalena maba garanaynin uu dhahay emergency-ga nambarka loogu waco dadka ambalaasta maba aqooninba labadaasiiti arrin darteed meydka gurigiyaan isaga haystay maadaama urta meydka ay isbedelaysana waxa aan sameeyey uu dhahay in aan soo qaato waxyaabaha guriga lagu nadiifiyo sidoo kalena markaa meydkan inaan isdhaafiyo inay muhiim ay tahay booliskana waxaa jirtay in kaamirad dukaan ay ka arkeenba isagoo xilligaasiiti ka iibsanayo agabyada guriga lagu nadiifiyo oo nadaafadda waxyaabahaasiiti loo adeegsado sidoo kalena ninkan taleefankiisa boolisku waxa ay ku arkeen su'aalo oo weydiiyo kale markaa inay ka mid ahayd sida dadka xubnaha loo jarjaro kale amputationka loo sameeyo sidoo kalena qabri sida loo qodo oo dhulka qof loogu duugo kale in waxyaabahaasoo kale googolka uu weydiiyey booliska taleefankiisa marka ay baaran yahay ku arkeen boolisku waxa markay dhaheen okay maqaayadda qaar ka mid oo xubnaha dhabarkeeda dambe yaa dhigtay xubnaha kale xaggee markaasiiti aad dhigtay waa uu kaxeeyey meel 10 kilomitir u jirta xoogaha yuu goob kale yuu geeyey oo madaxii markaasiiti yaalan iyo xubno kaloo jirkeeda ka mid ah oo ninkaniiti waxa uu sameeyey waxay ahayd in gabadhaniiti xubnaheeda marka uu jarjaray in uuba kala qayqaybiyey oo meelo kala duwan uu dhigay si markaasi aanan loo aqoonsanin oo 7 bishii 9aad 2020kiiba waxaa jirtay in kaamirad gurigiisa ku hordhegan ay tilmaamaysay isagoo boorsad weyn dhabarka u saaran tahay xilligaasiitina sii dhaqaaqayo oo waxaa markaa jirtuba dhahaba 5 maalin meydka guriga marka uu yaalaba aniga waxa aan sameeyey in aan jarjaris ku bilaabo oo aan kala qayqaybiyo meelo kala duwanna markaasiiti aan dhigo boolisku maadaama caddeymaha ninkaniiti ay ku wada heleen waxa ay noqotay in ay ku dhahaan okay waxa markaasiiti hadda aan ku gudbin karnaa maxkamad maadaama caddeymaha kale ee booliska sii cuskanayeen ay tahay in ninkaniiti DNA-diisa ay ka heleen gabadhii jirkeeda marka ay baareen oo taabasho ha ahaato ama tacaamul kale oo dhexmaraba ha ahaado in DNA-daasna waxaa sii xaqiijinaysay in ninkaniiti gabadhaniiti uu taabtay isagana afkiisa waxa marka uu ka sii qirtayba in gabadhaniiti uu nafta isaga marka uu agtiis gurigiisa ay ku dhimatay sidoo kale isagana marka uu sii sameeyey in xubnaheedii marka uu sii jarjaro ninkan waxaa dhacday in maxkamad loo gudbiyey waxaana caddaynta uu wajahay ee noqotay heerka koowaad ee fal dil ah ninkaniiti marka uu sameeyey xukun maxkamadduna waxa ay ku riday in ninkaniiti xabsi uu ku jiro muddo dhan 20 sano oo cimrigiisa ka mid ah si halkaasiiti waana ay ugu noqoto oo falkaniiti dilka uu sameeyey in ciqaab looga dhigo dhibaatooyinka ninkaniiti uu geystay dadka saamaynta ay ku yeelateen waxaa markaa ka mid ah apartmentiga uu degnaa dabaqa hoose maadaama maqaayad ay ku taalay maqaayadaas waxa ay noqotay maadaama dhabarkeeda dambe uu dhigay agabkii markaasiiti gabadhan xubnaheeda maadaama uu jarjaray qaar ka mida uu dhigay in dadka maqaayaddii ay ka sasaanbo oo ninka maqaayadda xitaa isaga oo magaca ka bedelay maadaama dhibaatadaniiti ay dhacdayo weli dadku waa kuwo sii xasuusta oo maqaayaddaasiiti lama tago maqaayaddan waxaa ninka u bixiyey xataa calibaaba isagoo ka bedelay magaca hore ay u lahayd weli dadku waxa ay sii xasuustaan oo ay tahay maadaama arrin shooga halkaasiiti ay ka dhacday in gabadhii la dilay ee jirkeedii qayb ka mid a maqaayadda dhabarkeeda wadda ah la dhigay inta baakad la soo geliyey in weli ay dadka sii xasuustaan oo xoogaa maqaayaddii shacbiyaddii ay lahayd oo kale kastamarkii imaanaya saameyn iyay ku yeelatay gabadhanna waxaa markaa dhacdaba in qoyskeeda maadaama ay
warbixinta ay heleen oo gabadhoodii in la dilay ay ogaadeen ninkiina markaa loo xugmiyey waxa dhacday in deeq ururin internetka ay kaga sameeyaan gabadhan si aaskeedoo kale ay ugu fuliyaan waa ay heleen lacagtaasiti oo sidaasiti gabadha aaskeedii uu ku dhacay ninkanna waxyaabahaniti foosha xun ee uu sameeyena waxyaabaha u horseedoo kale waxaa markaasiti isdhihi karnaa ka mid ah draagiska iyo waxyaabahaasiti in ninkaniti aad ugu foganay uu isticmaalayay qisada halkan ilaa dhammaadka haddii aad nala soo gaartay mar kale waxaa kaa codsanayaa in muuqaalkaniti aad laygarayso siina sheergarayso si janalku meel dheer uu sii gaaro haddii aadan ka mid ahayn haweyntu ku xiranna in janalka aad ku soo biirto si qisooyin sidan oo kale maadaama aad xiisayn karayso dhammaadkan aad soo gaartay halkani aysan kugu dhaafin fadlan janalka ku soo biir waad ku mahadsan tahay mar kale waqtiga aad ku bixinayso daawashada muuqaalkan muuqaalka xigiyaa noo balana